madaxweynaha murtad baad ku tilmaamaysaa waxa la shaqeeyana murtadiin baad ku tilmaamaysaa inay diinta ka baxeen sida laajligeedna in la dagaalamo ayaad iclaaminaysaa qodobkii ahaa hay'adda Halo Trust gawadhideeda lagu kaxaystay waa inaad tiraahdaa annaga ka dambeeyay gaalaanaanu gawadhideedii ka qaadanay burcad la isku afduubi maayo la isuguna gaban maayo ninka taa keenayna asaga abni waay doona oo meel gabada gela waay doona waraanu Daacishna manihin shabaabna manihin nimanka halkaas saarayna waa niman gaar ah hadii aa u bareereysaan hadaad yarad ku garaacaysaan idinka idin tala laakiin inanka wixii gaadha cid baa imika ku calaamadsan cid hadaan iska reebin wixii gaadha iyaga aan u haysana hadii afka la isu duubto oo niman afduubo horta halkeen ku dhamaan lahayn ugu dambeynta aynu isku wada afduubi lahayn isku wada dili lahayn bay maraysaa odayaashan waxgaradkan cuqaashan iyo madax dhaqameedkan oo goordhaweyd kulan warbaahineed ku qabtay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa ka hadlay afduub ay sheegeen in loo geystay wiilkan dhalinyarada ah oo lagu magacaabo Axmed Siciid Axmed Jaara ugu horeyna waxa halkaasi hadalka qaatay Axmed Siciid Axmed Jaara oo ah wiilka la sheegay in la afduubay waxaana uu ka warbixiyay qaabkii ay wax ugu dhaceen magacaygu waa Axmed Siciid Axmed Burco jooga saaka baaro 7 barkii subaxnimo marka ka soo baxay xaafadayda ayaa waxa ii istaagay gaari wantana oo beersol madow xiran meel xaafadayda u dhow oo jid cadaan soo raaco gaarigaas sheekh soo fuula ku sii qaadmay igu yiri waan raacay maadaama aalaaba gawadhida meesha maray ay sii qaadi jireen gaarigii shirkii daba marka fuulay in yaraan soconno ayuu leexday saddex nin shirka hore saaran iyo laba nin oo dhinacayga saaran ayaa bistoolada igu soo jeediyay waxay igu raaheen sheekh sii jeeso muraayadana eeg muraayadii markaan eegay ay igu raaheen kiishka madaxa gasho moobiladaadana iska xidh kiishkii markaan gashtay moobiladana xidhay ayay dhaqaaqeen ku dhawaad 20 daqiiqo ayay magaalada wareejinayeen 20 daqiiqo ka bacdi waxay geeyeen guriga geedka lahaayna kii xagga hore taagnaada iska furay waana la geliyay guriga geedkiisii markaan taaganay bay yiraahdeen iska fur sheekh shabaga ku xiran kiishkii markaan iska furay waxay u yiraahdeen istaji wax dhibi ma jiro waa ciidamadii dhar cad ahaa ee qaranka wax yar baan ka doonaynaa waxaana ninkan ba ku faahfaahinaya la hadal kabacdina earphone ay soo saareen earphone-daasi dhagay geliyeen earphone-da nin baa ka hadlayay ninkaas ay yiri salaamu calaykum salaam walaal Axmed Siciid Axmed Soomaha walaal waa isagii baan ku waa kuma wuxuu yiri walaal waa Maxamed waxaan ku Maxamed kee wuxuu Maxamed Muuse Biixi weey walaal soo dhow baan ku iskala kaftamay wuxuu walaal waa ku garanaya Axmed Siciid baa la guraahdaa inaad Burco ku nooshahay inaad nin asxaabul ciyaala tahay oo iska duruufaysan sarifla yar furtay 15 milyan ugu jiraan xalay ay ugu jiraan 15 milyan dahabta iyo marka la isku geeyo zaadaba ay ugu jireen 15 milyan wax la wareejiyo oo lagu shaqeeyo aan ahayn waa ku ogahay walaal shaqan ku haya maanta ka ceeshi doontid kana dargi doontid marka ay hoob waxa rajeenayaa inaad iga aqbasho aan diga diidin waxaan ku raasi waana kula waxay ta shaqadu wuxuu igu yiri walaal waxaad samaysaa waxaad tagaysaa magaalada Sheekh waxaad ku degaysaa hodheel la yiraahdo Xaashi Baarow shan nin baa ka kaxaynaya meesha shantaan nin waxay ku geynayaan buurta gacan libaax meel u dhow shantaan nin markay ku geeyaan buurta gacan libaax waxaad dhar iyo qalab bay ku wadaan dharka iyo qalabkaas xidhanaysaan shir jarayd baa qabanaysaan kaamirooyin bay wataan shirka jarayd afar qodob baan ka doonaa inaad ku dhawaaqdo meesha buurta gacan libaax inaad kaga dhawaaqdo urur islaamiya oo shariicada islaamka dalka ku soo rogaya diintana ku xukumaya qodobka labaad waa inaad bay'ad la gashaa oo sheegtaa inaad ka tirsan tahay ama hoos tagi doontid Daacish iyo xarakada ka doontidba qodobka saddexaad waa inaad sheegataa howlgalladii jabhadda gacan libaax ay ka fulisay Somaliland si gaara qodobkii ahaa hay'adda Halo Trust gawadhideeda lagu kaxaystay waa inaad tiraahdaa annaga ka dambeeyay gaalaanaanu gawadhideedii ka qaadanay qodobka ugu dambeeya waxaad sameynaysaa madaxweynaha murtad baad ku tilmaamaysaa waxa la shaqeeyana murtadiin baad ku tilmaamaysaa inay diinta ka baxeen sida laajligeedna in la dagaalamo ayaad iclaaminaysaa
intaa markaad dhamayso shiikh baad iska imaanaysaa abaalmarin baan ku siinaa abaalmarintaasi laba nooc weeye adaana optionka kala dooranaya inaad passport Faransiisa ku sameeyno iyo inaad $100,000 aan ku siiyo waxaan ku yiri niyo passportkaasi uu adeeg yahay $100,000 baa fudud kaasaan qaadanaya waxay ugu yiraahdeen okay waxaan ku yiri maxaad markaa ka rabtaan waxay ugu yiraahdeen niyo jabhadda ayaa si kale lagula dagaalama aanay jirin marka dawladda Faransiiska ayaan ka codsanay inay naga caawiso jabhadda naga soo afjarto marka diyaarad bay na siinaysaa diyaaraddaas lagu duqeynayaa ciidamada laga dejinayaa marka ayagaanu siinaynaa oo kilibkan tusaynaa marka inta yar fudud bad noo fulinaysaa lacagta aan ku siinaynaa deewa intaas ku dhantay deyntaas dib ma laha baan ku yiri waa caadi kabacdina waxay geliyeen bahalkii facekii kiishkii intii leego kale magaalada ugu soo wareejiyeen markii dambana luuq xiran ayay afka ii geliyeen istaajiyeen waxay guraan soco halkaas oo hanana soo eegin hadaad ma fashiliso wixii kugu dhacaada isku qaba waxa igu kalifay inaan aqbalo handadaadii iyo baskooladii la igu qabanayay iyo nimanku aanan garanayn oo meel aan u raacato aanan garanayn noloshaydana halis geliyay saali ajligeed baan isku furo oo yaani nimankan horta ka bax hadhow markaad banaanka u baxdo dawa suurantiine meeshan kaga baxso ayaan u aqbalay inay ballantaa ila galaan heshiiskaana ila galaan intaasi kadib waxaa dhankooda iyaguna halkaasi hadalka iska daba qaatay odayaasha cuqaasha salaadiinta iyo waxgaradka deegaanka uu ka soo jeedo Axmed Siciid Axmed Jaara waxaanay fariin adag u direen xukuumadda Somaliland intaasi kadib waxaa dhankooda iyaguna halkaasi hadalka iska daba qaatay odayaasha cuqaasha salaadiinta iyo waxgaradka deegaanka uu ka soo jeedo Axmed Siciid Axmed Jaara waxaanay fariin adag u direen xukuumadda Somaliland arrintan waxaan u aragnaa shirqoolkaas oo ah laba qaybood mid waa inanka iyo nabadgelyadiisa iyo wixii la gaarsiiyo midna waxa weeye nimanka halkaas saaran iyo magaca guud ee qabiilka oo lagu eedeynay reer hebel baa saaray iyo xusbi baa saaray ee awalba la eedeynay wasaaradda dakhilku daraatay ay eedeynaysay in raad loo soo raaco la sameeyo waxaan leenahay inanka wixii gaara dawladda ka mas'uula dawladdu iyada nabadgelyada ka mas'uula ninka sheegtay inuu Muuse Biixi yahay annagu ma cadeyn karo la sheegay haddii uu yahayna dee isaga ka mas'uulaya ka tanaasulo haddaanu ahayna ciddii kuma raad gadatay isaga la doonayo inuu soo qabto iyo iyaga dawladii marka annagu waxaan leenahay war annagu daacishna ma nihin shabaabna ma nihin nimanka halkaas saarayna waa niman gaara haddii aa u bareereysaan iyo haddaad yarad ku garaacaysaan idinka idin tala laakiin inankaa wixii gaadha dee cid baa imika ku calaamadsan ciddii haddaan iska reebin dee wixii gaadha iyaga aan u haysana horta waynu maqli jirnay oo Hargeysa waxaasi ka jiraan oo dhowr qof ay ku dhaceen baynu maqli jirnay laakiin kolley maana rumaysnayn ismaana lahayn har galay baa ninka dee burcala isku dhex futuubaya waa arrin aanan filaynin laakiin way dhacdo dee waxa taagan ninkii la afduubay baa maanta jooga dhibaatadaasi waa dhibaato meel fog gaaraysa oo xumaynaysa wadankeena dadka dhan xumaynaysa haddii afka la isu duubto oo ninba nin afduubo horta waa halkaynu ku dhammaan lahayn ugu dambeynta dee aynu isku wada afduubi lahayn isku wada dili lahayn bay maraysaa waxaanu leenahay arrintaa oo aanu sheegaynaa maamulka iyo dawladda dhan u sheegaynaa arrintaa waa in dhaqso wax looga qabtaa haddii cid kale ku hoos jirto ay waxaan samaynaysana dee waa inay iska baraxdaa oo maamulku iska baraxaa rag baa dee la magacaabay iminka haddii ay ku jiraan oo sidaa uu inanku sheegayay la isugu sheegay ay tahayna dee waa in wax laga qabtaa annagu iminka dee waxbaana loo sheegay wixii waxaa ka yimaada halkana lagu cadbadiyaan u haysan annagu hadday dhacdo ilaa maalmahanbana waxa soconaysay oo media ka hadlayay waa la hadlayay waxa hadashay madaxdii xusbiga hadashay wadani haddana markay hadlaan waxay ku khasbayaan oo ay leeyihiin habeen walba ay doonayaan inay qirtaan oo ku khasbayaan idinka ka dambeeyo nimanka saaray buurta war nimanka reerna ma saarin xisbina ma saarin waa la wada garanaya daacishna maaha shabaabna maaha war waxa ayaynan iskula wareegina inagoo arrimaheeni hore oo dhanba inaga kharaab yihiin oo wax badan inaga xun yihiin haddana mid kale oo ina sii baabiisay inaan maanta iskula kicine war arrintaa dhaqso waxa looga qabto maanta dhacday taa buurta ninkii doonanaya iyo ninkii la dagaalamaya halkaa waa kuwa jooge ama dayaarad ku soo kici ama bambaana ku soo kiciyo waa halkaa waa kuwa jooga
reerna kuma calaamadsanee waa nimanka halkaa u baxaye dee ciddii u tegaysa iyagaa yaqaana waxaa yimi inankan iyo amnigiisa iyo waxaan maanta lagula kacay iyo ciddii waxaa samaysay waxaan u malaynayaa dee cid baa la sheegay ciddii lagu sheegayna waa dowladdana waa tii wax loo sheegi lahay amniga qaabilsanayd hadday iyadu amnigii kharaabinayso dee waxay la tahay iyaduna siday wax markaa ay yeelayso dee iyadaa taqaana waxa weeyaan burco laysku afduubi maayo laysuguna gaban maayo ninka taa keenayna asagaa amni waayi doona oo meelu gelo waayi doona arrintaas waxaa laga qabto xukuumadda haddaanay ahayn iilka kii dhigay u dacwootoy iminka arrinku ka soo jeedo sida la sheegay dee madaxdii dowladdu ka soo jeedaa sida la sheegay farsamooyin u egina way jiraan waxaanu leenahay arrinkaa isku noqda wax ka qabta haddii laga qaban waayo dee waxay la tahay ninna nabadu taxtaxaashi maayo cidna la afduubi maayo waxa weeye ciladii kasta oo dhacdaa cidlo ma fadhiisato ta inankaa ku dhacday haddii aan wax laga qaban inamo kale ku dhici doontaa kuwa dowladdu jeceshahay bay galaafan doontaa kuwa qabaa'ilku jecel yahay bay galaafan doontaa war masiibooyinku markay soo horaan yeeshaan baa la iska qabtaaye marka ay fitirfaatir kuu qaadaan waxba lagama qaban karo waxaanu leenahay dowladdu marka la xanto way maqashaadoo waxay tidhaahdaa hebel baa xalay sidaa yidhi waa nin gurigiisa ka dhex hadlay hebel baa sidaa yidhi hebel baa telefoon diray waa inay qabato ragga gobolka iyo dalka gudihiisa dadka ku afduubanaya waa inay qabato ma noqon doonto waa lagu raad joogaa aan istar lahayn dowladdu iyada amniga qaabilsan hadday xun tahay iyadaa qaabilsan hadday san tahay iyadaa qaabilsan dalkana iyadaa ka dowlada mucaaradna inay yeelato way ku khasban tahay haddii ay dowlad tahay muxaafadna inay yeelato way ku khasban tahay inanka amnigiis heer ilaalin maayo annagu ilaalin mayno ciidan u diri mayno cid daba dhigi mayno adaa dowlada haddii ay badbaadana ilaahay baa badbaadahaya adaa dowlada haddii dhibaato soo gaadhana adaa lagaala xisaabtamaya waa hawl adiga kuu taalla waxa aad loo odhan jiray ascaanoodbaa mid lagu dilay caawana mid baa la dilay caawana halkanay wax ka dhaceen shabaab baa dishay magac kale oo loo sheegaa loo samaynaye maanta tii halkaa laga samaynaye laga fulinaya baa la keenay togdheer waxaanu leenahay dowladda amni baanu ka doonaynaa dadku amnigiisa ha helo dowladdu iyadaa dhakada loo saaray iyadaa lagu magacaabay reer biixi baa lagu magacaabay annagu halkaasun baanu haysanaa meel kale uma haysano waxaanu leenahay haddii ay qabtana ha qirato haddii aanay qabinna si waadaha isaga reebto ninka ayaa amnigiisana dowladdaasumaanu ka rabnaa cid kaleanu godobtiisa u haynaa ma jirto